Ethiopia bad ma yeelan kartaa mustaqbalka. Less than 2 decades ago, the ground began to split open in Africa, with fractures opening up across different countries, even splitting a man's house into 2. طبعاً marka weydiintan la isweydiiyo dadka qaar waxay u malayn karaan in Ethiopia ay yeelan karto badda Soomaaliyeed ee xeebaha Soomaaliya ku dhararan, laakiin weydiintu waa ay ka qoto dheer tahay. Ethiopia oo yeelata baddaasi ay Ethiopia yeelan doontaana ma aha baddeena. waxaa jirta dhacdo weyn oo lagu baraarugay taariikhdu markii ay ahayd 2005 waxa xilligaas ay saameeyayaasha cilmi baadhistu ogaadeen arrin yaab leh taasoo ahayd kala go'a weyn ee ku iman doona mustaqbalka qaaradda Afrika. Qaaradda Afrika ayaa mustaqbalka fog u kala go'i doonta 2 qaaradood, waxaana lagu baraarugay dilaacadeed dhuleed oo si xawli ah u socda oo ay qaaradda Afrika 2 ugu qaybsami doonto. dilaacadeedka dhuleed ayaa waxa uu ka hormari doonaa jigjiga Soomaalida oo dhanna waxa uu ka dhigi doonaa qaarad yar oo gaar ah. Dilaaca ayaa waxa uu ka soo bilaabmaa koonfurta Djibouti, waxa uuna Soomaaliya iyo qayb ka mid ah Kenya ku dari doonaa bartamaha badweynta Hindiya. marka uu dilaacan isku joogsado bari ilaa galbeed ayaa waxa la saadaalinayaa inay halkaas biyaha baddu si xawli ah ku soo gali doonaan. halkaasna waxa ka samaysmi doona badweyn kala qaybisa Soomaalida iyo Afrikaanka kale, laakiin kala go'an ayaa waxa uu qaadan karaa muddo 700 oo sanadood ah ama ka badan. xilligaas waxa laga yaabaa inay noqono ogayaasha 20aad ama kuwa 30aad. caruurteena xilligaas ayaana la amakaagi doontaa in waqtiyada kamid ah aynu badeena Etoobiyaanka siinay, waxayna ku qosli doonaan doqonnimada ay xilligan dadkeenu ku kacayaan. halkani waa Mirale.